بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشبكة عالمية قبيل هوية برشادة مالتي ميديا عشان ذين وجوه الرئي إيديتك ين كجرنا أما كلا شاندين تفيديها دونتي فيديها دونين صور هذا أما فيديوها دونين إن كلا شاندين أما إيديتك وسمعنا هراء واحد أصلا دقني library واحد نقشني تيست فيديو وكوا سادرتيد واحد ترى select أما labadaba hal mar ama mid u soo qaado oo highlight garay waxaad soo dhigataa timeline-ka markaad soo dhigato waxaa muhiim ah haddana inaan kala ogaano halka waxaa inoo yaala project halkan waxaa inoogu qoran isna inoo yaala clip means waxa weeye faylka aad doonaysa clip markaad taabato waa clip haddii aad doonaysa inaad dhammaan aad wada akhrisato ama aad wada dhegeysato ama wada daabatana waxaad isticmaalaysaa project iminka clip bacdima ay clipyo laba clip ay yihiin ay kala duwan clipka ugu horeeya si aan marka codka iyo sawirka aan u sirno oo si hagaagsan aan u jirno iyadana waxaa qurux badan si aan waqti badan inooga lumin inaan barano inaan isticmaalno calaamadda oo ah sound mixerka wuxuu noo fududeynayaa halka exactly ama toos si sax ah codka looga jiri lahaa tuuji ama click samee kuwa noo soo baxay waxay noo sheegeen inuu mono yahay inuu stereo yahay isna gaar baan u baran doonaa halka codka uu ka bilaabmayo waa kuwa marka kuwaas waa wave hadba codka siduu isu raacsanaysaad ku garan kartaa marka ugu horeysa soo qaad halkaa dhig halkuu ka bilaabmi lahaa marka simply codka inuu sax yahay kii aad bilaawday in kale weerta marka hore waa inaad dhegeysataa ama aad daawataa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم marka sax ahaan waxaa dhici karta codad kale inuu ku jiro marka hore iska hubi codka inuu bilowgii yahay iyo hadal sheekay inuu yahay in kale si aan qalad kaaga iman hadda waxaan ogaanay inuu bilowgii yahay bismillahi raxmaan raxiim si aan marka qaybta aan doonayno oo ah halkan ka bilaabata qaybtaasna ah qaybta aan doonayn oo ah nidaamka editingka kala shaandheynta kuwa aad doonaysid iyo kuwa aadan doonayn marka waxaad isticmaashaa laba qaab baa loo isticmaalaa right clickna waa la isticmaali karayaa oo maxaa la yidhahdaa marka right click marka la isticmaalo waxaa la yidhahdaa split clipkan ama faylkan halka uu taagan yahay mouseka kala qaybi laba u qaybi ama waxaa kuu fudud labada kii kuu fududaad isticmaali doontaa inaad markiiba click samayso ama tuujiso maqasta qaybtan marka macnihiisa waxa weeye ma doonayn soo bilow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن مeel kasta naga daawanaysaan u soo dhawaada barnaamijkeeni horumarinta nafta barnaamijkeeni telefoon baa igu soo dhacay marka inta ka haboon wanaad qaataa hadalka saxa ama ereyga oo wanaagsan xagu ku dhamaanaya meel kasta naga daawanaysaan u soo dhawaada barnaamijkeeni horumarinta nafta barnaamijkeeni horumarinta nafta halka ku joogso kulanti wanaagsan meel kasta naga daawanaysaan u soo dhawaada barnaamijkeeni horumarinta nafta okay inta marka waa sentence ama erey sax ah asna waxaad tiraahdaa split marka inta kale waxaad eegaysaa inuu ku anfacayo in kale eegana dhageyso barnaamijkeeni horumarinta nafta oo aad ka daawataan shabakada haqabeel.com barnaamijkeena noona laba ku soo qaadano sidii aad arkaysaa barnaamijkeena ereyada noocaasna inay soo noqnoqdaan maaha waa ku ceeb editingka sida darteed bacdama kala shaandheyn uu yahay qaybtan oo dhanba waan iska tuuraynaa marka uma baahnin clipka labaad ama faylka labaad dhageyso waxaad uga baahantaa marka ama daawo horumarinta nafta barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa guushu waa shay qof kastaaba uu jecel yahay inuu gaadho haddii ay tahay shaqo uu qabanayo inuu guul ka gaadho haddii ay tahay inuu noloshiisa guul ka gaadho guushu waa shay qof kastaaba u baahan yahay marka ugu horeyn waxaad u baahan tahay si aad guul u gaadhid inaad ilaahay tala saarato okay
معنيها هو example وتصالة انت هو اري مناسب اسكو ان اسكو قاطع هذا واحد سميسا split ده معنيه إديتك قيبت كو وجوه الرئيسة وسدا كوا دونست كوا دونة كلا سارة وحنا اللي هذا قيبت سدا نوكله وحنا اللي هذا first editing وكلا شاندين تهري شيء كستولا أما هرور كبر مركه هري ولا هذه مركه كوا مرلوات بلقوا عليا مرسدحات بلقوا عليا إديتك كانوا وسدا كله مثلا وحن مركه وحن دوننا الرياضة ونكسر إن نسرعنا قيبتها وحن لنا وين نعمل جديد halkan waxaa ku jira space yar ama in yar oo aamusnaan baa ku jirta intaana sidaa baad soo oran kartaa adigoo leftiga ku haya okay playda marka si iskugu xirmaan eeg kusoo dhawaada barnaamijkeennii horumarinta nafta barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa guushu waa shay qof kastaaba uu jecel yahay inuu gaadho haddii ay tahay shaqo uu qabanayo inuu guul ka gaadho haddii ay tahay inuu noloshiisa guul ka gaadho guushu waa shay qof marka editinka baseka ugu horeeya ama sideedaba joogto waa sidan oo soo noqnoqoto ilaa 10 20 30 40 clip ama 40 file oo noocaasa intaad doonaysid intaadan doonin ayaa waxaa la yidhahdaa editing waa baseka ugu horeeya waa lagama maarmaan intaa inaad marka hore intaa barato aad samayso noocyo fara badan buu leeyahay noocyadiisa iyo qaababkiisa iyo waan baran doonaa ka hor intaynan xirin waxaa muhiima inaad isticmaasho waxaa la yidhahdaa control s ama file tag waxaad tirahdaa safe haddii kalena farahaaga waa inaad bartaa ama gacantaada bidix waa inaad bartid control s taasoo macnaheedu safe gareeyo control s waxa ku soo baxaya halkeed ku safe gareynaysa taana waa inaad ogaatid waxaan safe gareynayna waa project macnaheedu wuxuu kugu safe gareynaa my project macnaha waa mashruucayga ayaa tiri mashruucayga halkaad ku safe gareysanaysa waa inaad xusuusnaataa halka uu nagu safe gareynayo wuxuu ku safe gareynayaa iminka Coral Video Studio Professional X9 projectkiisa ayuu ku safe gareynayaa sidaa darteed waa inaad magac u bixiso ama soo gaagaabso ama sii dheerdheere sidaad jeceshahay yeelo horumarinta nafta markaa waa inaad tiraahdo safe iminka waxaan haysanaa projectigii koowaad halkan doonaan tagayna waqti kasta computerka hadduusan virus ama dhibaato kale ku dhicin projectigan sidaan u safe gareynay wey hadhow waxaan soo qaadanayna calaamadda Coral Video Studio Professional X9 projectiga ku jira ama projectigan tagaynaa magaca la yidhaahdo horumarinta nafta aan dib u tuujinaynaa ayaan ka soo qaadan doonaa wuxuu noo keenayaa isagoo sidaan ah casharka ku xiga ayaan ku baran doonaa ka horna waxaan sameynaynaa qaybtan dib click u samey waa video caadigii buu noqday markii hore waxaan u isticmaalaynay inaan codka ku ogaano halka uu ka bilaabmay halka ku dhamaanayo iyo halka saxa iyo halka qaladka عشر كده هلقاني جود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته